السلام عليكم soo dhawaada maanta waxaan sameynaynaa biryani waa bariis aad iyo aad u macaan intaanaan loo baahan yahay miiska hadda yaalo waxaan idin tusaa sida loo sameeyo marka daawasho wacan marka waxaad u baahan tahay bariiska waxaa waaye intaad caadi ahaan samaystid dadka ay ku xiran tahay intaad cuntada u karinaysid waxaad kaloo u baahan tahay kabsar iyo yaanyo tomato basal toon butter paprika chicken digaag waxaa ka jaray qolofka waxaad kaloo u baahan tahay khalkan waxaa ku dhaqaynaa chickenka yogurt iyo intaan xawaasha u baahanahay waxaa ka mid ah xawaashka oo bariiska lagu talgalay soomaalida fruit curry powder white pepper filfil cad Maggi heel kan waxa waaye sidaan u egyahay waxaa la bay leaf marka hadda bariiska biyaan ku shubeynaa meelaa sii dhiganaynaa hadda chickenka nadiifinaya waxaa ku bilaabay khalka kadibna waxaan ku dhaqay biyaha basashii waan jarjaray toontiina waan yaryareeyay si aan u tumo kabsartana si yaryaraan u jarayaa basasha markay sidaan u ekaato ayaa digaaga ku ridaysaa basash iyo digaaga waan isku walaaqay hadda waxaa ku ridaynaa xawaashyaasha aan hadda videoga bilowgeed idiin sheegay kulligood hal qaad oo kale ka daray cusbana waan ku riday marka hadda waxaan ku daraynaa toontii aan tumnay si fiican aad u walaaqaysaa daboolkaad u saaraysaa in yar kadibna yaanyada iyo kabsarta aan ku ridaynaa marka hadda 3 yaanyo ayaan soo qabsaday 3 yaanyo ayaan isticmaalayaa marka si yaryar ayaan u jarayaa kadibna digaag ayaan ku ridaa digaaga iyo toonta iyo basasha markay si fiican isku galeen ayaad yaanyada iyo kabsarta ku ridaysaa kabsartana waan ku ridaynaa digaaga 10 daqiiqo kadib oo kale markay wax walba si fiican isku galeen ayaad 3 qaado yogurt ku daraysaa
waxaad sii diyaarsanaysaa biyo kulul ayaad sii karkarsanaysaa sidaad bariiska u karisid. marka digsina waad soo qabsanaysaa, waad ku shubaysaa biyaha, heel iyo qorfana ku dar siday bariiska hadduu caraf u noqoto. waxaadna ku ridaysaa saliid oo 2 qaado ah sidaynan isku dhegdhegin. marka bariiska sidaa markuu ekaado ayaa dabka ka saaraysaa. 2 qaado oo subag ayaadna ku ridaysaa. hadda waxaan jarjaraynaa barbarooniga iyo basasha, waan shiilaynaa sidaan hadhow bariiska ku kor shubno. basasha markay kolorkan lahaato ayaa dabka ka diminaysaa. warqad ayaad soo qabsanaysaa oo aad basasha ku kor saartid siday saliid sifaan uga baxdo. kadibna waxaad shiilaysaa barbarooniga. barbaroonigana in yar ayaad u daynaysaa. lama rabo inay gaduudato, inay wax yar jilaac noqoto la rabaa. marka hadda wax walba waan karsanay, bariiska iyo digaaga, barbarooniga iyo basashana waan shiilanay. haddana wax walba waa la iskor saarayaa. marka sidaad aragtiin waxaa ku bilaabo bariiska, waxaan ku kor saarayaa digaaga, mar labaad bariiska, sidaasaa u wadayaa. waad arkaysiin laakiin sidaan u sameeyo. marka dabka u gaabi kadibna dabool saar. waa mahadsantihiin, waa inoo fideoga dambe insha allah.